soomaali maxay dhahdaa masugta meherlaay ha noqonin. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa idin salaamo walaalihii qaaliga dhammaantiin adduunka dacaliis meel walbaa ka joogtiin oo walaashiin marayaan kusoo dhawaada channelkeena aad iyo aad u salaaman tihiin. intaas kadib titleka maxaa uga jeedaa? maxaa titlkeena uga jeedaa? waxaa uga jeedaa qabiilkayga ree abtigay iyo ree aabahey iyo maxay aheeday meeshaan kasoo askumay. aad iyo aad waa jecesha inaa ogaatid soo maaha? yes waa jeceshahay, waa kuu sheegayaa waxweyn ma ahan. channelkeena horta intaanan kuu sheegin familiga qabiilkayga ehelkayga meeshaan kasoo joogo, maadaama aad jeceshahay inaa ogaatid. haddii aad channelkeena ku cusub tahay soo dhawo subscribe saar insha allah. marka ugu hore marka xigto waxaan idin leeyahay maxay aheeday aad iyo aad idin jecla walaalahayga qaaliga. run ahaantii waxaa tihiin dad kal iyo laabsi niyad oo ilaahay dartiisa aan u jeclahay. wayna fiican tahay in run ahaantii qabiilka la isku ogaado soo maha? qabiilka in la isku caarufsado, in la isku aqoonsado aad bay u fiican tahay. waayo waa la soo sheegayba soo maha? yes waa la soo sheegay. cuudka maanta asxaabay go-aan ayaan soo gaaray inaan idin sheego insha allah hadduu ilaahay yiraahdo familigeyga iyo qabiilkeyga iyo meeshaan kasoo jeedo iyo cidda aan ahayba insha allah. waxaa laga yaabaa de inta badan oo fiirsanayso videogeyga fiirsanayso waxaa laga yaabaa 100% inaan isku qabiil noqono maybe waa dhacdo talow bal commentiga igu soo qor inaan isku qabiil nahay laga yaabaa. oo aan meelaha hoos hataa waxaa rabaa inaan idin sheego qabiilkeyga qabiilkan kasii ahay qabiilkan kasii ahay 3 qabiil soo maaha? 3daas qabiil qofkan wadaagno commentiga ha iigu soo qoro, videogana soo u share gareysmaha laga yaabo. waxaa laga yaabaa haddana reabtina isku mid ka noqono. waxaa laga yaabaa haddana waxaa laga yaabaa inaan hoos family hoos sii noqono soo maaha? okay intaba waxaan ku leeyahay soo dhawow oo videoga like this too much kali oo maxay ahayd share-tiisana badi oo wax walba insha allah inaan isku mid noqono laga yaabaa. haddii aan isku mid ahayn ayadana problem ma aha insha allah. waxaan ahay walaasha un laba jeerab oo aad youtube-kaas ka baratay, don't worry ha u bixin. intaas kadib horta koobkaaga shaah soo qaado, bakeeriga halkaas soo dhigo, kafee soo karso ama qaxwo soo karso ama shaah soo cab ama casiir ama cabitaan soo qaado, agteeda soo dhigo. okay may agteeda maaya sorry waa kamay is agdhig micnaan waa daawanaysaa sax? is agdhig. marka is agdhigtid maxay ahayd niyad gasho walaasha marin maanta qabiilkaaga noqon doontaa miyaa talow marin yay noqon doontaa bisinka iyo raxmaanka talow aniga yaabay marin yay noqon. xam fresh oo idinka dabageenaya ayadana xam fresh oo fresh idinka sii dabageenaya. xanta freshka idinka sii dabageenaya waxaa waaye oo idin sheegaya waxaa waaye qabiilka uu yahay xaaji cabdalle. asagana ma ila joogo u jeedin sax? inta fiiri ma ila joogo, inta fiiri ma ila joogo, laakiin qabiilkiisa ana idin sheegaa. ana qabiilkii waa idin sheegaa. talo isku qabiil maan ani asaga hataa ina isku qabiil nahay in kale aan idin sheegaa. because waxaa idin kugu sheegaya maanta on go-aankan usoo gaaro waxay tahay waxaa tihiin familigeyga, waxaa tihiin ehelkeena, waxaa tihiin qaraabadeena, waxaa tihiin dadkeena, waxaa tihiin walaalaheena, waxaa tihiin wax walbo. walaasha waa ahaan karaa, walaalka waa ahaan karaa, habaryar waa kuu noqon karaa, walaasha waa la dhalan karaa, wax badan. okay sorry maanta waa yaabanta waxaad is leedahay maryanta talo qabiilkeedii noqon doonaa. ha walwalin, hana walbahaarin, hana degdegin because degdega shaydaan buu u sugnaaday. mana fiicnaba in la degdego because maxay aheeday haddaa dhahid maanta waxaan fiirso ama maxay aheeday barnaamijkan si fiican u fiirso waxaa laga yaabaa inaad isdhaafinayso videoga. ha isdhaafinin, sug waa kuu soo wata qabiilka. qabiilkana run ahaantii waxa loo soo dejiyo waxay tahay qofkan inaad ku aqoonsatid maaha inaad isku dishin oo dhiig ah iskaga keena ma aha. bisinka ma fiicno waxaas, ilaahu naga najiyey subxaan allah. maxay aheeday wadankeenii si qaldan ay u fahmeen, laakiin ani si qaldan ma u fahansanin. waxaan u fahansanahay qofkan qabiilkiisa isku qabiilana sax? qofkan qabiilkiisa isku qabiilana. ani weli kuma soo korin wadankeenii Soomaaliya.
waxaan ku soo koray dal oo aan macnaha darisnahay aan ku soo koray ma fahanteen soo marka maxay aheeday marka waa inaan qasab marka waxaa waaye inaan qabiilka waxaan ani aaminsanahay aan ka aaminsanahay inaan isku ogaano inaan isku barano yes qofkan qofkayga waa qofkan qabiilkayga waa yes qabiilkayga madaxa ii saaran ها hebel qabiilkayga isku qabiilana walaalkay waa yes walaalkay waa qofkan kale yes isagana familkayga waa sax qofkan kale yes asxaabteeda waa okay qofkan waa asxaabteeda qofkan waa familkayga qofkan waxa waa isku qabiilana okay markaad waxa soo diinaysa adigii Cabdullaahi isku qabiil ma tihiin isku gobol ma ka soo jeedin isku maxay ahayd meel ma ka soo jeedin waa soo diinaysa wallahi waa su'aalo la soo diiyo horta waa run ahaantii labada qof markay isguursanayaan oo maxay ahayd familiga xaqiisa iyo xaqeena Soomaali waxay qiimeysaa qofkan iyo qofkan isku qabiil ma waliba waxay qiimay odayaasha hore waxa la dhihi jiray qofkan haduusan qabiilkaaga ahayn ma lagu daraano qofkan maxay ahayd hadii oo in hebel uu ahayn ma lagu daraayo gabadhan hadii in heblaay ahayn ma guursanayso saasoo guurka hore ahaan jiray sax miyaa mise qalad adi ahaan maxay kula tahay ani ahaan maxay la tahay hadii aan fiiriyo sax because wax badan waxay tahay Soomaali maxay dhahdaan waxa taqaan guurso wax la yaqaan dhashide sar karto halka sax miya maya sax ma aha waxa taqaan guurso wax la yaqaan dhashide ana waxa u fasirtay waxa taqaan guurso oo Soomaali guurso wax la yaqaan dhashid oo Soomaali dhashide sax yes أنا سأفسرت I don't know marka adiga سأفسرتay سأفسرتنا qaybta commentiga ayadan igula soo wadaag inaan isku qabiil nahay oo isku ehel nahay oo sida maxay ahaday isku soo dhawnahay iyo meeshan wax iskaga nahayna qaybta commentiga ugu la wadaag because ani muhiim ay tahay adigana muhiim ay ku tahay oo waxay muhiim kugu tahay fiidiyoga marka ku soo dhaco waxa dhahay walaashay Maryam ayaa fiidiyo soo gelisay iyo walaalkay Cabdullaahi ayaa fiidiyo soo geliyay hadii aan kaliya ahna waxa dhahay waaw walaashay Maryam fiidiyogeeda inaan fiirsado waajib waa because of family صح ولا قلبت رانتي صح waayo maxay ahaday adduunkay ka dhacday bariyahan adduunkay ka dhacday waan u badatabo qofkan ina qofkaaga wax siisid qofka wax siinaysid inuu qofkaaga noqdo marka walaalahay waxaan ku leeyahay horta fiidiyoga is dhaafinaysa waana yaabanta waxa isleedahay talow tii Maryam ahayd maanta qabiilkeena qorabtaa ana Soomaali ahay qabiilkan ka seexan oo ku sheega Cabdullaahi inuu isku qabiil inaan isku soo dhawnahay iyo inaan waxba isku ahayn iyo inaan isku soo dhawnahay oo isku qabiil ana waa ku soo wadaa hadararin waqtuga Soomaali maxay dhada musugta meherlay ha noqonin because musugta meherlay ha noqon xaloonahay waxay tahay musug karti ala tara ma sababta warka ma sheegto alla warka la ruuga ana adduunka waxa una warka in la ruugo maanta horta warka in ku soo ruugo inta ku soo ruugi karo koodaha yaan in ku soo ruugo waxba run ahaantii aniga qabiilkayga amaanta rawaasi sax oo dah saa uga rogan oo aad mar walba ugu xasuusato fiidiyoga marka soo dhigtay gabadhii qabiil hebel ahayd ba fiidiyoga soo gelisay ina dhahay oo fiidiyoga like ay sartay like tan haloo badi hadii aan isku qabiilnahay like ta haloo badi waa loo badinayo waa ogyahay ilaa isku qabiilanahay okay aniga qabiilkayga ya Cabdullaahi qabiilkiis ya waa idin soo wadaa waa idin hadan ku sheegaba aniga waxaan ahay Soomaali Maxamed مسلم دين الإسلام كان هيستو الحمد لله شكر رب العالمين محارجين أنا اسكو قبيلنا يس صومالية هاي اسكو قبيلنا صح فاميليان هاي walaalkayad tahay walaashayad tahay isku dhiigan nahay isku diinan nahay soomaha marka maxaa soo fiidiyoga duu ku soo dhaxaysan Cabdullaahi sidoo kale yeesoo idinkii lawkii Cabdullaahi idin sheega Cabdullaahi sidoo kale asagana wiil Soomaaliyeed sorry garabkayga ma fadhiyo laakiin waa idin tilmaam macna meeshu fariisan jira waa ma fahanteen waa wiil Soomaaliyeed waa walaalkiina
waa youtuberkiina, yes waa youtuberkiina, waa sheekeeyihiina, waa idinka qosliyihiina, yes maxay ahayd wax walbo maxay ahayd barnaamijyo badan oo idin soo sii daaya. anigana sidoo kaleeto walaashiina ahay oo aad jeceshihiin oo marin la dhaho Soomaali quruxda qoyska tuu ka soo gasho. No wax kaleeto muhiim ma aha. wixii muhiim ah run ahaantii aniga horta ma ku soo korin meel qabiil dhan laga sheegay oo la iskaga jecel yahay dhan ma ku soo korin. waxa dhan adeer, abti, eedo, habar yar dadka dhan way ii sinaan sidoo Ilaahay og yahay. ma ku soo mu arkin mana ku soo korin meel laga dhahay qabiil hebel wax siiya, qabiil hebel yaa la siin, ma ana arkin. aniga sideedaban asxaab iyo walaalaha ka dambeeya iyo maxay ahayd waxa ka dambeeya Soomaalinimo iyo de maxay ahayd aqoontaas dad kale iga dhaxayso malihi qabiil hebel ama nolosheeda intaad gurigeyga yimaadid iguma arkaysid qofkaas marayno qabiilkeeda yahay ma arkaysid, qofkaas maray qabiil ay ku xiriirsaane ma maqlaysid, ma fahantiin. so insha Allah waxaan rajeynayaa inaan isku qabiil nahay. qof kasto oo fiirsanayo qabiilkeyga tahay, yes qabiilkaaga ah, aniga waxaan ahay qabiilkaaga, bal maanta meel u dhaaf. Cabdullaahina waa qabiilkaaga dee, asagana waa qabiilkeyga, adigana qabiilkeyga tahay. qabiil aan iska dhaafno, qabiil waa quran aan deyno insha Allah. walaalahayga qaaliga muddo badan baan kala maqnayn maanta marka foodadaas riiska idinku soo galay iyo in micnaa idinka yaabsado dhaka faartalo maxay tii soo wada isla heedeen koo dhaha intaas ayaa idin soo wada haduu Ilaahay yiraahdo intaan barnaamijkan mid ka sii qurux badan now kanoo kale mid dhahay because mid ka sii qurux badan insha Allah. haddii aan kaa xanaajiyo oo aad ku caajistay videogan sa usul had qabiil sugnay ka raali noqo, aadan kaaga raali gelinaya oo ku jeclahay Ilaahay dartiis videogeyga inta ka xanaaqdana waa idinka sii raali geli, waan idinka sii raali geli kun iyo jeer. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.